waxaan rabaa inaan wax yar u jawaabo walaalkii inta uu qolka xiran yahay. walaalkii yiraahday meeshan caay ma taalo iyo wax la caayay ma jiraan. walaal waxaan ku leenahay waxaad isku dayaysaa qorax soo baxday inaad sacaba ku dado wax kuu soconayana maaha. Sheekh Cabdullaahi Al-Harari iyo jamaacadiisa caayada asxaabta ayagaa meel kasta tala taagan, kitaabadoodana ugu qoran, ma garanaysaa muxaadaraadkoodana ku aflagaadeeyo oo ku caaya. yacni anagu midda aan tiraahday soo kala saara dhammi iyo sabbi iyo shatmi erayadaas hala kala saaro in la kala saaro u baahan yihiin ma u baahna in la kala saaro. waa erayo dhammaantood ku tusinaya caay iyo aflagaado iyo ceebeen iyo balaayo hoog bay ku tusinayaan. erayo ku tusinaya amaan iyo weyneyn maaha iyo suuma salaax maaha, erayo caay ku tusinaya weeyaan dhammaantood. maxaa kala saaris uga baahan yihiin marka? tusaale ahaan inay Sheekh Cabdullaahi Al-Harari aan soo qaadana dee asaa axbaasho dhan ka mas-uulaya sheekhoodii ah. Sheekh Cabdullaahi Al-Harari matalan inta aan ka xasuusto kitaabadiisa laba ka mid ah yuu ereyga dhammi kula yimaada. ereyga caay dham uu kula yimaada. kitaabka koowaad oo xasuusta waxa weeyaan sharaxa nasafiyada. markii uu maraya matniga imaam nasafi uu ma aragtay uu lahaa walaa nadkuruhum ilaa bikhayrin, asxaabta nabiga ku sheegi mayna sala allahu alay wasalam waradia allahu canhum ajmaciin ilaa bikhayrin, khayr maahana wax kale ku sheegi mayno. walaa nadkuruhum ilaa bikhayrin, wax aan khayr ahayn ku sheegi mayno asxaabta nabiga. waa duuduub ogow, dhammaantood waxaan khayr ahayn ku sheegi mayno nasafiye. Sheekh Cabdullaahi Al-Harari markuu sharaxayay muxuu yidhi? waxaas waxba kama jiraan uu yidhi. waa kitaabkii uu sharaxayay ogow. wuxuu yidhaahday haadaa min xaytu alijmaal, kan waa duuduub uu yidhi. markay dhammaantood yihiin oo la isku qabto lama wada caayi karo guud ahaan, oo taas waa gaalnimay keenaysaaba. laakiin fardi fardi iyo shaksi shaksi markii asxaabta la soo gaaro oo hal hal ay imaado, wanamdaxu waan amaanaynaa wanadumu waan caayaynaa buu yidhi. waxba u reeban mayaan asxaabta. wanamdaxu waan amaanaynaa hal hal iyo fardi fardi markay soo gaarto iyo jamaaca jamaaco, wanadumu waan caynaynaa, yacni qaybna waa amaanaynaa qaybna waa caynaynaa buu yidhi. bilaahi calayk, ma wanadumu marka uu leeyahay yani waxba cayo ku tusin maysa miya? sidee u dhihi kartaa marka yani meesha cayo ma taali iyo wax la caayay ma laha? mase adaan luuqadda carabiga fahmaynin? iyo ereyga dhammi wuxuu ku yimaado. ereyga dhamma wuu caayay waa markuu maadigaya. dhamamtu waan caaya taal faacilka marka lala xiriiriyo. yadhumu wuu caynahaya waa markuu mudaaricaya. udhmum caay waa markuu amarka yahay. markuu majhuulka yahay waxa weeyaan dhumma waa la caayay. dhamman caay fahwa dhaamun weeyaan. markuu mafcuulka yahana waa madmuumun mid caayan ama mid la caayay. iyo dhamiimun iyo dhimun inta way ku imaadaa. dhammaan erayadaasna yani intaasoo meelba kulligood waa caay. tusaale marka luuqadda carabiga haddii la yidhaahdo dhamma shakhsa, shaksigii buu yani caayay, macaajimta luuqadda carabiga maxay ku fasirayaan? ay caabahu wuu ceebeeyey, wahajaahu wuu aflagaadeeyey, wantaqasahu wuu nusqaamiyey, sharafkiisii cirdigiisii wuu nusqaamiyey, wastaxqarahu wuu xaqiray. bilaahi calayk, marka wanamdaxu wanadumu marka uu leeyahay Sheekh Cabdullaahi Al-Harari ma waanay macnahaas ku imaanaynin. uu maaragtay kulligood ku tusinahayo aflagaadada iyo ba iyo hooga ku tusinahayo. midda labaad inuu caay ka wado waxaa ku tusinaysa labada eray uu u isticmaalay sharaxa nasafiyada oo didka isku ah. wanamdaxu waan amaanaynaa buu yidhi qaybtood, wanadumu qaybtoodna waa caayana. dee ereyga dhammi waxa didka ku ah waa taqaanaa, madxigaa did u ah. waxaa ka mid ah ereyada didka u ah ijlaalka weyneyn, ikraam sharfid, ixtiraam xushmeyn, yani xushmad qofka in la xushmeeyo. marka dhammi iyo madxi isku meel ma galaan, dhammi iyo ijlaal isku meel ma galaan, dhammi iyo ikraam iyo ixtiraam isku meel ma gali karayaan walaal. ereyana luuqadda carabiga waa waadix, waxay ku tusinayaan caay, kuwana waxay ku tusinayaan maxay? waxay ku tusinayaan dee amaan bay ku tusinayaan. wax isku meel yani geli karahaya maaha. marka ha dhihin Sheekh Cabdullaahi Al-Harari waxba ma caayin iyo meeshan caay ma taalla iyo waxaas ha dhihin. meesha caay way taallaa sheekha, asana kitaabadiisa ku cadaysanahay.
shicirka oo carabiga haddaa u lahabano ereyga dhami markii loo isticmaalo ma wuxuu ku tusinayaa yani suuma salaax iyo xoogaa yar waan canaananaynaa iyo soo sheekh laba garar ku fasirayay xoobaa aragtay waa xoogaa yar waa suuma salaaxeen lamay ku tusinaysaa ma ku tusinayso shicirka carabiga markii dhami loo isticmaalo waa marka ba iyo hoogal isku dhigayo oo meesha u dambeysay carabtu iskala baxayso hadday dhamiga isticmaalaan tusaale ahaan farasdaq maruu qolo galahayay wuxuu yiraahday أبلغ بني بكر إذا ما لقيتهم ومن فيهم من ملزق أو معلهج بأني أذم العافقي إليكم بأني أذم يعني عين هيو العافقي إليكم ووالبة الكلب الهجين ابن حشرج حسبناهم منكم فقد أخرجتهما عجوزاهما منكم إلى شر مخرجي ومعاي ماشي ودهم بيزي لو أصل ماشي كلا بحب الأج نحن استعمالي بأني أذم العافقي مركا ما وحي كتوسيسي يعني صوم سلاحي حوغا يرى عنانا هيا ما هن أريق ذم الوقت عريق مركا الاستعمال عذر ماشي ودهم بيزالس كلا بحيا شي عبد الله الهر مركا أولي هاي ونمدح وأماننا شرح نسفيد وكليه ونذم وعاينا تي أنا كو عربي كوانا خان ولا عيب ونجي ذا نك وصوحبه وريمن الانتقاصي استحقار كهذا أنكوسو شيء جاي بو ونجي ذا أصحابتي النبي غيب كم إذا معاوية الرجيسية رضي الله عنهم أجمعين إن ونجي ذا مركز ذنبي عاي وحنكوسي عدينا هيا كتاب كلاباد شعب الله الهر وليه صريح البيان كلي هذا وحوي هذا وردير بو سوتي oo ah in dee asxaabtii Sayid Cali la dagaashay ay aafimiin yihiin ay cusaad yihiin ay waxaagoo dhan maaragtay kuwa dambaabay oo caasiyaara ay yihiin oo inuu soo waxba u reebaneen waa u jeedaa marka warkii uu soo wado waxa kamid ah ereygi dambi baa daba joognaa inay caay tahay li'anna al-baghya maxaa yeelay baghyigu idaa utliqa haddii la idlaaquu yiri fii maqaami dhammi maqaamu dham meesha cayda maqaamka la isku caynayo aan ma aragtay la isku amaanin hadii lagu idlaaqo baqiga wuxuu rabaa inuu baqiga fasiro la yakunu man naqdu yiri illa bimaana taaddi alladhi huwa dhulm yani bimaana taaddi xad gudub oo dhulmi ah ma ahana wax kale ma noqonayo yiri dhamiga marka isaga kitaabkiisa sariixul bayaan kitaabkiisa magacaas ula baxay bayaanka ah oo cad buu wuxuu ku sii cadeynayaa in ereyga dhami loola jeeda caay oo baqiga wuxuu yiraahdaa markii la idlaaqo waliba lagu idlaaqay intee fi maqaami dham meel isku caynahay maqaami dham maxaa u leedahay marka walaalahay ma yaalaan meesha caay ma taalo meesha caay baa taalo aasimiin buu ku tilmaamay kuwa dambaabay usaad buu ku tilmaamay kuwa caasiyaal ah yani wanamdahu wanadhum buu yiraahday wuxuu asmacala culimadii ashaacirada ee ma aragtay tira war asxaabtan yaan la caayin oo ma aragtay oranaysay ma banaana in asxaab rasuulillah sallallahu alayhi wasallam la caayo iyo wuxuu yiraahday waa beentiin waa la caayi kara asxaabta ma ahane qadka laga baxayaa uu yiri kalaamki ilaahi iyo kalaamka rasuulkana waxa khilaafsan yani markii zubadka ku dhagana يعني ومن المناقض لكلام الله وكلام رسوله قول من الإسلام باكم إذا بير وما جرى بين صحابة نسكت يعني ويها أصحاب الإحمر وان كأمسين الله ما أمسكروا لي والله نحضر على نايا وحكم إذا ديدتك كأمس أو الحسن الأشعري وحكم إذا إن كمر يعني أي مدى أشاعر ضدن باقلاني إيو ابن فورك إيو ابن عساكر إيو سبكي إيو هدو إلهي كوسم أقلي هيدي عبد الدين يجي سيدي شريف الجلجاني إيو فخر الدين الرازي إمام غزالي إيو كل جود وحي لم يدهين ابن رسلان وكل جنيه أو ليه ومن المناقض لكلام الله وكلام رسوله كلامك ابن رسلان وحكي السورج إذا كي إلهي كي رسولك وحنا كويستا أصحابته وحي الأحمر يعني هلا جاء مصاي يعني أصحابته في اللاجادين يعني قيبتودي يعني في اللاجادين ده كل يوم أسكمت أنت كأمستورنا وحي ليه كلامك إذا تبتص ونقنايا من المناقض لكلام الله أشاعر لهم كلام كذا مركب وحويان إلهي كلام كيسي كلام كرسولك وخلاف سنيه معناه هذا صاص ونقنايا هذه مركز سدان نور ربطها إن ولا لأنه قد أدعيسد
meesha caay ma taalo waxbaa la caayay ha dhihinina kan ha yeelinina asxaabtii baa sidan loo caynaya oo har iyo habeen ay manaabirta la taagan yihiin caayadooda oo hadda aragtid fiidiyoyaashii wixii dhan aan kuu soo diri karnaa bal yani ma ogtahay bini aadamku caqli bay leeyihiin cilmi bay leeyihiin ilaahay baa wax fahamsiiyey caay ma taalo oo cidlo ah waxaas waa af soomaaliga cidladaha aan diidnay la imaada adilo cadcad inuusan cabdullaahi alharari uusan caayin dee asxaabi rasuulillahi sala allahu calay wasalam shiicigii marka aan lahaa qolka xalay ha laga saaro oo ma aragtay markuu asxaabtii saa ogeed u caayay oo taariikhda jacburka uu soo qaatay dee maxay isdooriyaan marka ninkan inuu asxaab caayay baa xalay ugu xanaaqno qodka uga saarnay asxaabtii oo dhan uu caayay sheekh cabdullaahi alharari iyo axbaashna asxaabtii bay ceenayaan isaga iyo ninkii shiiciga ah weliba aan ogeyn inuu marka horeba axbaashta ka tirsanaa oo ma aragtay aan taariikhdiisa garanayno oo xalay inta lagu wada xanaaqo qolka laga saaray maxaa loogu xanaaqay ma sheekh cabdullaahi alharari iyo axbaash oo dhan lagu xanaaqo waa kuwan asxaabta caynayo erayaday ku caayeen kitaabadooda in kaga soo qaaday idiin fasiray haddii luuqadda carabiga aad fahmaysaan bilaahi calaykum dadka yaan fikradooda iyo ma aragtay maskaxdooda iyo caqligooda lagu ciyaarin meesha culimaa ka buuxda na wada dhegaysanaysa annagoo dhan ujeeda qofkii qaldan iyo qofkii saxan marka qofkii inuu isku xishoodaa fiican oo uusan isku dayin wax daynin qabo uu qirtay waxaa midda kale ceeb ah nin caqiidadiisa qirtay oo banaanka la taagan oo le anaa caynahaya asxaabtii in ma aragtay qof isku dayo inuu yiraahdo waxba ma caayine uu soo masalaaxayaa oo shacbiyad uu ku raadsado ruuxaas ceeb waay sheekh cabdullaahi alharari laftirkiisa qalad ka gelaysaan hadeertaan oo caqiidadii uu isaga qabay baad qarinaysaan oo leedihiin waxba ma caayin axbaash caqiidadeeda yani jamaacada qalad laga gelin waxay qabaan hala sheego haddaad tidhaahid yani adoo shiica raali gelinaya haddaad tidhaahid ashaacira waxay qabtaa in ma aragtay asxaabta la caayi karo ashaacira waa dulmise ma qabaan in asxaabta la caayi karo haddaa shiicadana tiraahid annaga adoo shiica u ceeb qarinayo shiico ma qabto in asxaabta la caayi karo ama shiico ma aragtay sunniga dad fiican ay u yaqaanaan shiicadu waa ma aragtay sunniga ma caayaan haddaad tidhaahid shiicadii waa dulmise sababtoo ah caqiidadoodii ay idhaarsadeen oo ay banaanka la yimaadeen baa aduu qarisay marka dadku caqli bay leeyihiin culimaa ku jirtoona dhegaysanaysa ninka saxan iyo ninka qaldan ujeeda yani cayb weeyaan qofka caqiidadiisa asaa aaminsan kitaabada ku qortay jamaacadiisa aaminsan ha qarinina yani ninkii shiiciga ah meesha soo galo asxaabta caayay oo lagu wada xanaaqay iyo nimankan anu agteeda waxba iskama kay dooriyaan waa isku mide ama nimanka asxaabta caaya dhammaantood ka saara meesha amase dee walaalkii shiiciga ahaayoo meesha laga saaray isagaaba si toos u cadaystay aan kala hadalne soo geliya oo meeshii ha lagu soo celiyo